يعني بالشدو waxay ka koobanta wax ka bilaabta marka hore qof bay ka bilaabantaa qof macnaha la badiyay baa dad noqda sax soo marka qofkii ma la hadlaya si dadkii ay wax ugu qaataan aad iyo aad okay masada waxa la yiraahdaa marka waxay leedahay u neefso sidii naflihii I know it's a game, I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game, you think I'm gonna play. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتي قالقا ميل كستو أجوكتين كسو دوادا channel كينا عتية channel ما أنت وحاني وذا مرتعولوس ولاركي هانا عيسو وحالي سو دواو قعمو فران قلبي فران كسو دواو أصحابتينا سلام أما أصحابتا هذا أما أصحابتي ذا ميل كستو أجوكتين أصحابتي قالقا aad oo mahadsantahay abaayo Mario waan ku dhawahay channel Kabti channel asxaabta dabcan kugu xiran aad baa u salaamaya waan rajeynayaa kulli in ayagana soo dhaweyn doonaan maadaama adiga soo dhaweysay waan ku mahadsantahay inaad soo dhaweysay aad iyo aad soo dhawaad abwaane iska barta waa abwaankeena waa abwaankooda waa abwaankiina waxaan ku leeyahay soo dhawow mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba insha Allah ma ahaanayso marka ugu horeysa channelkeena ka soo muuqatid mana ahaan doonto marka ugu dambeysay sida rajeenayo ugu horeyn waxaan ku weydiinayaa magacaaga saddexan iyo meesha ku nooshahay meesha ku nooshahay waxaan dabcan waxaan u maleynayaa inaad ka wadid meesha ku dhalatay because meesha ku noolay waa taqaanaa wax sax okay magacayga saddexan magacayga saddexan dabcan waa Hanad Duraan Muuse ما شاء الله abahay waa Duraan awowgeen waa Muuse dabcan Hanad Cizo waa naynaasteyda yani dadka inta ugu badan waxaa dhihi jiray ababa aan dhahaa isiyo sharaf marka qofka ii dhaho waa mahadsantahay walaal isiyo sharaf aan dhihi jiray soo marka la hadda aan laftiga kugu arkay waa tiraada dabcan ha soo marka sidaas awgeed ba dhalinyaradu waxaa arkay Cizo igu isqaar isiyo sharaf igu caay soo marka saas la ajligeeda igu dhaga magacaas markii dambana inaan caadi ii noqday okay magacayga saddexan ka soo gudbo meesha ku dhashay waxa waa aniga gaar ahaan waxaan ka soo jeedaa guud ahaan Soomaaliya ka soo jeedaa gaar ahaan waxaan ka soo jeedaa gobolka Mudug kasi gaar ahaan galgaduud meel yiraahdo galgaduud iyo Mudug waa laba gobol Soomaaliya waa laba gobol laakiin maamul ahaan waxay xisaabsan yihiin hal gobol xisaabsan laakiin caadi ahaan waa dad kala dego oo kala deegaan صح deegaan waa galgaduud waa deegaanka galgaduud tan kalena waa gobolka kore صح aad iyo ma santahay abwaan waxaad tirisaa gabayo ama suugaan ma sha Allah horta anigu waa daawadaa waan ku xiranahay run ahaantii aad iyo aad waxaad badana soo tirisaa suugaan aad iyo aad u qiiro u leh sida gabay maandhow soo saarto geeraar aan dhahe maandhow soo saarto ka hadlaya gabdhaha صح gabdhaha ku gubaaminaysa marna alla hadlaysa marna u sheegaysid okay wixii kugu dhaliyay iyo macnaha sida ku imaaday actually ma sha Allah aad ma santahay masadaas oo ugu talagalay oo nahay gabriyaha dhigayso horta waxa la igu qabsaday nahoydaas la igu qabsaday nahoydaas ara yani gabdho kale loo arkan miya maya ayaan kale loo arkan oo fahmayo meesha aan wax wado bay hadana yani qaar ba kaftan ahaan ay igu qabtay macnaha faar ahaan ay igu qabtay waxaan faar bal isku qabanay waxa la yiri niyo ereyga naada gabdho badan waxay soo qoreen waa dhageysan lahaa hadii ereyga naaca ka dayn lahayd nahoy gabriyaha dhageyso kuma jirin dhageysan maayo ay soo qoreen mugta dhageysan maayo sax maxaa dhacay gabadheena waxa ku dhacay maxaa dhageysan wada ku dhacay mugta nahoy inta ay ku jirto dhageysan maayo qaar macna kaftan bay ka wadeen sax okay ereyga naa dabcan hal mar qadafkanaga ma ahan hadafkanaga laakiin ereyga naa macnaha markii wax la tilmaamayo waa nin iyo naag laakiin markii xumaan macnaha uu bedelo qofka uu qaab daran u isticmaalo way fol xumaanaysaa okay maasada nahoy gabriyaha dhageyso dabcan waxay ahayd naasa qalbigayga yani aan ka sameeyay actually anoo qeyraysana waa sameeyay horta kow dee gabdhaha Soomaaliyeed waa walaalahay horta marna waa kuwa ay dhalayba Soomaaliya dabcan waa ii dhali doontaa xaaskayga insha Allah inay waa gabarba Soomaaliya nin waxba ima dhalay xaas gabar waa ii dhalaysa abwaanka iska blow iga dafaar ay dexgal intaas waxbaa jiray dadka ay ugu soo ciyaareen okay
marka nahoy gabar yahay dhegeyso hal baan kuu sheegin fiican hal baan kaaga digin halaysan hal baan kugu oran muhiima hal baan kugu boorin haatan haleel hadalkayga fiirso yani marka koowaad hal baan kuu sheegin waxbaan kuu sheegin oo fiican waxbaan kaaga digin oo naftaada u daran midna waa kugu boorin adiga kuu fiican midna waa kugu boorin macnaha waa samayn lahayd waan kugu boorin inaad samayso marsaas aad bay u dheeray dabcan qaybtii labaad noo soo saaray dan way qoran tahay laakiin maadaama aniga meesha aan waxyaalaha aan sameyn badanaa ay hal daqiiqa ku kooban yihiin iyo ma gaarto soo marka qaybta ugu badnayd oo ugu macaanid way dhimantaa waliba oo wax xagga waxbarashada markaa gabadha ku boorinaayo xagga nafta inay bedesho oo kale nafteeda ay isbedel ku samaysaan ku boorinaayo xagga nolosheeda inay maxaa wax ka barato waxna ay ka bedesho markaan ku boorinayo waxyaala badan inay qiimaheeda ogaato soo marka waxay ugu dhaliyay waxay ahayd inaan garwaaqsanayo oo nafteeda ka dhaadhicinayo kow qiimaha ay gabadhu leedahay nafteedan ka dhaadhicinayo kadib markaan nafteeda ka dhaadhiciyana muuqaal ahaan baan duubay si macnaha dadka kalena ay uga dhaadhacdo marka saasaa ugu dhalisay maasha allah qaybta labaadna waa ka misuun soo baxaysa hadii la yiraahdo waa sugaynaa insha allah abwaan goormaa macnaha is ogaatay inaad ama hala abuur tahay ama aad ogaatay inaad wax curin kartid maadaama aad tahay abwaan waxaa ogaaday inaan wax curin karo waa hore sheeko dheer waa haddaan galo marar badanaa la iga horeysta ku celceliyey yani sheeko dheer waxay ahayd berigii aan soomaaliya joognay familkayga qaar kamid ah miyiga deganaa sida adeeraday oo kale so marka miyiga oo kale inta tago baa waxaa dhici jirtay inaan miyiga waxaa jiro aroosyada markii la aroosayo habeen waxaa jiro habeenka arooska u dhacayo gaaf waxa dhahaa jiro oo isugu soo imaado oo qof walba talentigiisa kusoo bandhigo sida tusaale ahaan qofka hadduu heesi karo oo kale haddii uu dadkaas ammaani karo oo kale actually gabay waxaaba jiray aniga aan sameeyey oo aan ku ammaanay familkii waxyaala badan heesaan samayn jira oo heesaan qaadi jira awal hore cumar dhuule iyo tubeec oo kale laakiin wareysi hadda kahor kuma bixin nasiiba u yeelatay inaan gabayga wareys ku bixiyo macnaha hadda kahor heesaan waan hilmaamsanaaba awal hore gabay inaan sameeyey laakiin hadda waxaa igu soo dhacay isla fadhigan gabay waxaa jiray aan sameeyey oo aan famil u sameeyey is aroosay oo aan ku salaami jiray aan ku salaamay yani gabay ay ku jirtay sharaf iyo cizaad mudatane hoo salaantaan iga hoo camal ma xasuusta 2008 hal eri kama sheegi karo laakiin waxaan xasuustaa gabaygaas sidaan usoo tirinaya waxaan kusoo gabagabayn jiray macnaha caruuskaan salaami jiray sharaf iyo cizaad mudatay oo sidaanaa noqotay iga hoo salaantaan baa ku jirtay marka waagaas ay igu dhalatay 2008 kadib waxaa dhacdayba dee inaan horey usii galo waa noqotay marka su-aashaas micnaha su-aal lamid oo iyada ku dhex jirta micnaha hibadan oo abwaanimada waxna waa hidaraac waxna waa hibo ilaahay ku siiyo marka ma waxa adiga ay hibo u leedahayba mase waa hidaraac oo familka ahaa abwaanin aada mahadsan tahay maria marka koobaad horta soomaalida dhan waa wada hal abuur waa wada abwaan yani ani ereyga abwaan sima waaba nimcahaban la dhaho horta abwaan ma ihi abwaan qofku waa inuu garaadka iyo waayo aragnimada kow inuu horta ka buuxo oo xilli aan garaad iyo waayo aragnimadii aan ku buuxsano weli ma gaarin oo dee da-yaraa ku jira يعني جرات كمرنا وارجنمو مرنا ويارجنمو تي ويارجنمو يعني ما بقارن بودي سيدو كلا أبوان أنا هرت عادي هم بأنو حنجي على إن حلابور بس كحي مركز سومالي قرن بعوض حلابور هذا أريجا جالسدي إن ماريا haddii lagu dhaho wax samee waxaa laga yaabaa toban erey oo isku xiran oo qaafiyad ku socdo ma weynaysid adigagaasa macnaha hadda kula yaabo haddii aadama hadda aan ku dhaho maria hadda barnaamijka aan samaynayno bal maanse yar ka curi oo iska ammaana ama iska waa caadi ah waxaa laga yaabaa in isla markiiba ay kuu fududaato inaad samayso haddii aad ku fakarto waa qof walba sida uu naftiisa uga curiyo laakiin halaburnimmadu dadka soomaalida o dhan waa ku wada jirtaa intooda badan marka dabcan hiddo ma oo heshay baan rabaa inaan kaaga jawaab su-aasha mise waa kugu anoo hiddo u haysto oo soomaali ahaan hiddo uga haysto baa haddana familkayga qaybo badan oo gabi jiray baa jiraan hadda rag caana rabaa baa jiro oo hadda magacyada haddaan sheega la garanayo laakiin laakiin ma raba in familkayga markaas la ogaanayo toos laysoo weerarayo ma sheegay raggaas adigu laakiin awaano waaweyn oo caan ah
baa macnaha aan family ahaan ka tirsanahay family ahaan kasoo jeedaa maasha allah inaba caadi maahan aad iyo aad umahadsantahay abwaankeena qaaliga kale aniga abwaankeyga ay tahay shukant maantii aad iyo aad baan ku taageeraa hore u socon ku leeyahay insha Allah biidnillah intaas inkasi badan insha Allah waan rajeynaynaa maanta bal waa soo booqatay waxaan rabaa inaad gabay noo tiriso aniga iyo asxaabtayda keed waa igu gaaday laakiin waa gaad wax walba adduunka gaad ma la isaga baxa okay soo marka gabay nooceen ay tiriyaa marka ma mid dhiirigelin tiriyaa mid dhiirigelin aan leedahay halkaas ka sii wada hawsha wadiino waa kaasa okay gabay dhiirigelin kuwa badan aan sameeyaa jiro marka hal mid baan la soo qabanaya sida gabayga waxaa la yiraahdaa naf hankurisa la yiraahdaa maaso waa gabay maaha sax hankurisa la anu ma gabi waa maaso batiriya maaso tirisa masha Allah sax marka maasadan hal qof ma la hadlayaa yani bulshadu waxay ka koobantay wax ka bilaabtaa marka hore qof bay ka bilaabataa qof macnaha la badiyay baa dad noqda sax soo marka qofkii ma la hadlaya si dadkii ay wax ugu qaataan aad iyo aad okay maasada waxaa la yiraahdaa marka waxay leedahay u neefso sidii naflihii u nuurso sidii nalkii u naaxso sidii naqii ha noqon nacab nolosha dila naf baad noloshaadii u tahay noolaha kalaba sax cadceedda nasiixada lixaadka naruurada awlaadda nasiinada hantida noocyada xardhani rabbaa noo wada nasiixay nasiiyo nooga dhigay nusqaan aan ugu nagaan nisbee u nisbee sidii nisbee noloshaada dhami inay taal naxash korkiis shukriga waa lagu nastaa dulqaad baa lagu nabdaa waxsiin baa lagu nuglaa nagaanshana lagu helaa xurmadu waa nolosha guud cisadu nabarrada qalbiga naxliga ku dhex nool intay nitaaqo ka dhowrtay bay nadiif ka dhigtaa xubnaha nafluhu kaa nabadgalan akhlaaqday noolisaa maasha Allah Allah ya isaga aan ku leenahay abwaankeena qaaliga aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga oo nagu soo booqatay sidoo kalena aad nooga ogolaatay inaan su'aalaha qaar ku weydiino insha Allah biidnillah su'aalo badan oo ii dhiman yihiin waxaan ka dhigi doonaa insha Allah ama muuqaalka ku xigo ama muuqaal kale asxaabtan waxaan leeyahay abwaankayga la soo dhaweeyo insha Allah channelka laga dhex muujiyo aad iyo aad u mahadsantihiin abwaan aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah hal kalmado asxaabteeda aad ku leedahay asxaabtaada waxaan leeyahay horta marka hore waa mahadsantihiin gabadha maadaama ay channel leedahay oo mar walba in kula hadasho oo macnaha mar walba waxa iyada ay aaminsan tahay in kaga soo gudbiso ama ha ahaadeen talent ayada ay leedahay hibo hadaa iraahdo aniga talent waa dadka waayaan wareeriyay yani hibada ayada ay leedahay ama kugu soo gudbiso hadday tahay hibo macnaha dhanka gabdhaha ay ugu talagashay hadday tahay hibad guud oo dadka dhan ugu talagashay yani halka kaliya waxaan kugu soo gudbiso dabcan waa halkan soo marka maadaama idinka ay waxay soo gudbinayso de idinkiina dhiirigeliya oo dabcan waxyaalaha la isku yaqaano sida like-ta oo kale barnaamijka hadda waa la bartay like-ta iyo dislike-ta macnaha ay leedahay gabadha dislike ka dhigina like-ta u badiyo dabcan sidoo kale asxaabteena ayagana waxbaan ku nahay iyagu waxay nagu yihiin oo micnaha waxay aan soo saarnay qaataan annaguna ayagaan wax ku nahay actually so marka maadaama gabadha aad ka faa'iidaysaan u faa'iideeyo subscribe horta u saara kadib like saara videogana dabcan ku celceshta dabcan viewska ma ahan hal mar haddaad daawatid keliya ma ahan views 10 jeer muuqaalka hadduu ku daawado dadku 100 kun waxay arkaysaa hees oo kale tusaale ahaan 100 kun ay daawatay macnaheeda ma ayna 100 kun oo qof ay ku daawatay halka qof oo 20 jeer aniga haddaan ku daawado 20-kayga lagu xisaabinaya soo marka 100kaas kun oo aragto waxaa laga yaabaa 50 qof inay yihiin macnaha 50 kun oo qof 50 kun oo kale yani celceshada ku celceshada soo marka muuqaalka markaa dhamaysatid oo kale daartid maasa aad ka hesha Allah ka dhigaa ku jira xataa ku celcesho aad u maasantiin marka maadaama gabadha ay waxay ni samayso oo mar walba in dhiirigeliso idinkana ayada dhiirigeliya qof walbana dabcan halkan waxa ugu faa'iideysanaya Allah waxay tahay qof walba waxba kugu jira hal abuur inkastoo uu leeyahay waxba kugu jira ugu yaraan hal abuurka kugu jira waxa waaye inaad qof inta soo hor fadhiista aad ka qotlayso xataa waa hal abuur kugu jira marka waxa la waxa kugu jira hal xishoon adigoo yani ku xadgudbayno shakhsiyada adiga aad leedahay oo yani ku xadgudubka waxa uga jeeda dad badan waxa jira dhaqal dan u fahmay oo caanimada ama bulshada inay ku barato macnaha ka fahmay dhanka xun oo qofku hadduu qof caayo ama qofku qof wax oo jirkiisa ama soo bandhigo oo kale ama wax adu dhaqan xun ku soo baxo ama adu wax xun oo
qaar baa xataa diinta in laga baxo subxaan allah kusoo macnaha ha wahadhowna kuleeya baranki bay ahayd ha soo marka wax qalad ah yacni adoo wax kugu jira soo bandhigaysid qaab akhlaaqiyada ku wanaagsan usoo bandhig waa mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad u mahadsan tahay asxaabteeda qaaliga videogan intaas noogu egyahay insha allah intaan video lamida ku kulmi doono waxayna ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye. I know it's a game.